السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا Muna Corner maanta waxaa idiin wadaa insha Allah faa'iidooyinka ama isticmaalka aloe vera gel ama gel asabaar wuxuu ka samaysan yahay dacar faa'iidooyin badan uu leeyahay marka ila fiirsada faa'iidada ugu horeysa waxaa waaye hand sanitizer ka sameeynayna saabuunta gacmaha lagu dhaqdo markaad banaanka joogtid waxaa u baahanaysaa aloe vera gel iyo alcohol oo maxaa 70% ama 70 iyo wixii ka sii weyn iyo waxa u baahanaysaa kis yar oo maxaa hado saliid essential oil ama maxaa hado tea tree oil nooca aad doontid aad isticmaali kartaa saddexdaas shay waxa ka sameeynayna mucaqam al-yadayn waxa u baahanaysaa sidoo kale dhala yar aad ku shubatid alaabta qasatid iyo maxaa hado qaado ama bakeeri yar aad ku qiyaasatid qiyaasta waxay tahay qiyaas aad u go'an ma aha laakiin waxaad ku dadaalaysaa kaliya inay alcoholka inuu ka badnaado aloe vera gelka marka halkaan marka laba fur ama maxayda laba qaado oo waaweyn marka ku qaso alcoholka hal qaado ama hal fur oo maxayda aloe vera gelka ama maxayda gel sabaarka alcoholka la rabaa inuu ka badnaado qiyaasta saasay tahay aloe vera gelka maxayda markuu meeshu halka yahay labo ama saddex waxa ka dhigaysaa alcoholka gel sabaarka faa'iidooyin badan uu leeyahay gel sabaarkan ani noocan waxa ka soo gatay bakaaro $1 ama $1 iyo bar meelahaas uu joogaa waad u jeediin malaha color malaha clear waaye xoogaa yar waxa ku daraysaa tea tree oil ama maxaa hado any oil of your choice ku daraysaa kaliya caraf ahaan maaha wax qasaba ma aha alcoholka qiyaastiisa way ugu badneed marka xoogaa yar meel iskaga celiyay marka isku qastid diyaar waaye isticmaalkiisa marka banaanka joogtid ama maxaa hado meel oo saabuun iyo biyo kaaga dhaweyn saabuuntan waxay fiican tahay ama mucaqimkan hand sanitizer-ka wuxuu ku fiican yahay isla markii isticmaali kartaa dhaqidna kaaga ma baahna gacmahaagana insha Allah bakteeriyada iyo jeermiska nadiif ay ka tahay dhaladaas yartaa ku shubanaysaa boorsadaada ku ridanaysaa isticmaalka labaad aloe vera gelka waxa waa BB cream waxa u baahanaysaa aloe vera gel iyo kareemka qoraxda wajiga ka celiya iyo sidoo kale foundation ama bool baraha qoyan ama kareem asaas BB creamka wuxuu ku fiican yahay waa kareem oo maalin kasta aad isticmaali kartid oo isla markiina wajiga ka haleynaynin xoogaa yar oo dhalaala iyo qurux u yeelaya wajiga maalin kasta waad isticmaali kartaa ama shaqada adoo u socda ama jaamacadda iskoolka ama even adoo gurigaaga jooga wax dhiba ma laha kareenka qoraxda inta wax badan soo baxay tis yar rabay laakiin wax tiro badan soo baxay marka waxaad isku daraysaa aloe vera gelka iyo maxaa hado foundationka iyo kareenka qoraxda saddexdaas shay marka isku qastid waxaad yeelaysaa waad isticmaalaysaa waji nadiif ah kareemkan wuxuu kale ku fiican yahay marka isticmaashid xoogaa yar oo indho fuulay xoogaa yar oo seeta marsanaysaa wajigaaga ma sha Allah nadiif qurux waaye ma kaaga baahna make up badan waa kaasa waa u jeedin waji maxaa gacanta markii la mariyo wax white cadaan ka dhigaya ma aha waa wax oo jirkaaga camal u eg isla markiina dhalaal qurxoon waji nafaqo leh oo saxa leh ka muuqanayo waay
maalin kasta waa isticmaali kartaa kareenkan wax ka ma dhibaayo maha sida bool baraha qoyan oo dadka wajiga ka soo bixinaya finan ama nabra marka maalin kasta isticmaashid aloe vera gel kana wajiga nafaqo u yeelaya dadka wajigooda saliid leedahay aad ugu fiican yahay marka waa kaasa isticmaalka saddexaad waxa waaye make up remover aloe vera gelka wuxuu ku fiican yahay saa sheegay dadka wajigooda saliidda leh marka make up wajiga ku marsan yahay intaad biyo ku dhaqin waxaad u baahan tahay wax oo ama cream ama saliid inaad iskaga baabi'isid dadka wajigooda oiliga yahay aloe vera gelka isticmaali karaan make upka wuu kaa tirayaa isla markiina wajiga kaama saliideynayo si fudud ugu tirayaa maxaahada make upka waa u jeedin mandiilka ama tiishka sidoo maxaahada uga tiray make upka gacanta isticmaalka afraad oo u dambeeya waxa waaye body and face scrub aloe vera gel waxa waaye gel oo maxaahada nafaqooyin badan leh xoogaa yar oo sokor ah ku dareynaa scrub ahaan oo korka ama wajiga aad u isticmaali kartid scrubkan marka wajigaaga soo dhaqatid nadiif uu yahay xoogaa maxaahada aloe vera gel iyo sokorta isku walaaqaysaa sokorta maxaahada la badinaaya xoogaa siday u noqoto wax xoogaa adag oo wajiga maxaahada wasakhda iyo ka soo bixiya scrubkan faa'iidooyin badan uu leeyahay wasakhda iyo dubka wasakhdu ka ridaaya sidoo kale aloe vera gelkana wuxuu yeelayaa nafaqo iyo maxaahada moisturizer korka u yahay marka waa kaasa faa'iidooyinkaas maxaada maanta idin keenay waxaan jeclahay videogan inaad ka heshaan insha Allah like iyo share iyo subscribe ka iga ilaabina asxaabtiinana u wareejiya videogan dad qof u baahan dhici karta ku soo dhawaada channelka waa mahadsantihiin bye bye